waxaana wanaagsan daawadayaalkiiba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada falanqeynta xogta caalamka oo aynu ku eegi doonno haddii Allah awood la raali ka noqdo xiisadaha u dhaxeeya Shiinaha iyo Taiwan oo cirka isku sii shareeraya iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa dawladda Turkiga oo lagu eedeeyay in ay hawada ka celisay diyaarad ula socday wasiir ka tirsan dawladda Greega. haddaad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto janaalka haddaad saaxiibadana ka mid tahayna baraha bulshada noogu sii share garay barnaamijkeena. wararka ka imaanaya dalka Shiinaha waxa ay sheegayaan in heegan buuxa la geliyay ciidamada dalkaasi iyadoo laga cabsi qabo in dagaal ay ku qaadaan Shiinuhu Taiwan. xiisadan maalmahan ay taagneed iyadoo dhanka kalena dawladda Mareykanka ay taageero xooggan markan u fidinayso Taiwan isla markaana ay ka iibinayso hub badan oo casri ah taas oo Shiinaha ka sii careysiisay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay ciidamadiisa inay diiradda saaraan markan u diyaar garowga dagaal xooggan. waxa uu madaxweynuhu ugu yeeray ciidamada inay maskaxdooda iyo xoogooda oo dhan saaraan diyaarinta dagaalka booqasho uu ku tagayo saldhigga military oo ku yaala gobolka koonfurta ku yaala ee lagu magacaabo Guangdong talaadadii sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Xinhua. inta uu madaxweynaha Shiinaha kormeerkan uu ku guda jiray waxa ay wakaalada wararka Xinhua ay sheegtay inay galaan xaalad feejignaan sare ah wuxuuna ugu yeeray inay noqdaan kuwo gabi ahaanba daacad ah nadiif ah la iskuna haleyn karo. laakiin booqashada militariga ayaa timid iyadoo xiisada u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ay weli taagan yihiin meeshii ugu sareysay muddo 10 sano ah iyadoo khilaafaadka ka taagan Taiwan iyo cudurka COVID-19 uu abuuray kala qaybsanaan xoog leh oo u dhaxaysa Washington iyo Beijing. aqalka cad ayaa isniintii ku wargeliyay Congress-ka Mareykanka inay qorsheynayso inay hore u sii wado iibinta hub casri ah oo loo iibgeeyo Taiwan sida laga soo xigtay kaaliyaha Congress-ka oo ay ku jiraan gantaalada sare lagu magacaabo Mobility ee HIMARS. dhanka kalena xiisada u dhaxaysa Greega iyo Turkiga ayaa noqotay mid iyana cirka isku sii shareertay iyadoona warar dheeraad la helayo. Greega ayaa si rasmi ah waxa uu uga dacwooday Ankara maanta oo Khamiis ahayd kadib markii uu ka candacooday in mas'uuliyiinta Turkiga ay dib u dhigeen in loo ogolaado diyaarad siday wasiirka arrimaha dibadda ee Greega Nikos Dendas inay ka gudubto hawadeeda si uu ugu soo noqdo dalkiisa booqasho rasmi ah oo uu ku tagay Ciraaq halka Ankara ay beenisay inay sidaas sameysay. TV-ga rasmiga ah ee lagu magacaabo ERT TV ayaa sheegay in diyaaradda waday wasiirka arrimaha dibadda ee Greega in ay habeysay ama ay duuleysay 20 daqiiqo oo fiidkii Arbacada ahayd meel u dhow magaalada Mosul ee dalka Ciraaq ka hor inta aysan saraakiisha dowladda Turkiga u ogolaan inay ka gudubto. waa daandaansi kale oo taxana ah kana imaanaya Turkiga. waxaan rajaynaynaa in dhacdadan aan dib loo soo celin doonin mustaqbalka. afayeenka dowladda Greega Stellos Patsas ayaa u sheegay saxafiyiinta isagoo intaasi ku daray wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay qaaday talaabooyin lagama maarmaan ku ah arrimahan diblomaasiyadda. dhinaca kalena wasaaradda dhacdadan ayaa timid xilli xiriirka labadan dal ee xubnaha ka tirsan NATO ah ay xiisad weyn ka dhex taagan tahay sabab la xiriira muranka xuduudda badda ee bariga Mediterranean-ka iyo sidoo kale u dirista Turkiga maraakiibteeda si ay shitaal iyo gaas uga soo baaraan badda Mediterranean. barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ayaa la socotaan. madaxweynaha Qirgizistan Sooronbay Jeenbekov ayaa ku dhawaaqay Khamiistan maanta iscasilaadiisa kadib 10 maalmood oo banaanbaxyo rabshado wata ay ka socdeen gudaha dalkaasi isagoo carabka ku adkeeyay inuusan doonayn taariikhda in ay xusto inuu daadiyay dhiiga dadkiisa. waa sida uu hadalka u dhigay. Jeenbekov ayaa sheegay bayaan uu soo saarayna ku sheegay inuu ka cabsi qabo inay rabshado dhacaan haddii ay banaanbaxayaashu fuliyaan hanjabaadooda ah inay aadayaan hoygiisa. kadibna militariga iyo ciidamada ammaanka waxaa waajib ku ah buu yiri inay hubkooda u adeegsadaan ilaalinta xarunta rasmiga ah lama huraanna ay noqon doonto in dhiig la daadiyo. taasi darteedna waxaan ka doorbiday in aan xilkan isaga tago. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri aniga kuma dhegani xukunka mana doonayo inaan galo taariikhda Qirgizistan maadaama la igu yeeri lahaa madaxweynihii dhiiga ku daadiyay rasaasta shacabkiisa. Jeenbekov ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu iscasilayo laakiin waxa uu dib ugu dhigtay iscasilaadiisa toddobaadkan isagoona maanta si kama dambeys ah ugu dhawaaqay. iscasilaada madaxweynahan wuxuu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee Qirgizistan ah ee xilka looga tuuro dibadbaxyo ay dhigaan dad shacab ah tan iyo sanadii 2005. wadankan
waxaa hareeyay xiisad tan iyo doorashadii baarlamaanka ee dhacday 4 Oktoobar, natiijooyinkaasi oo ay diideen mucaaradka kadib markii lagu dhawaaqay in madaxweynahan uu guuleystay. Mas'uuliyiintu waxa ay joojiyeen natiijada doorashada kadib markii taageerayaasha mucaaradka ay isugu soo baxeen jidadka oo ay la wareegeen dhismayaasha dawladda, waxaana ay ku guuleysteen inay sii daayaan Chabarov oo xabsi dheer ku jiray, kaas oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkan. ugu dambeynna in ka badan 1000 maxaabiis ah ayaa lagu sii daayay maxaabiis isweydaarsigii ugu weyneed ebed ee ka dhacda gudaha dalka Yemen. dhinacyada ku dagaalamaya colaadda dheer ee Yemen ayaa isweydaarsan doona qaar ka mid ah 181 maxbuus oo maanta qaarkood la dirayo, halka maalinta Jimcahana sidoo kale la diri doono tirada kale ee soo hartay, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan fallaagada dalkaasi. heshiiskii waa la fulin doonaa iyadoo la kaashanayo Ilaahay. taariikhda loo qorsheeyay maanta iyo berina waa lagu fulin doonaa, ayuu yiri Cabdulqaadir Murtaza oo ah sarkaal fallaagada ah isla markaana mas'uul ka ah arrimaha maxaabiista. diyaargarowga waa dhameystiran dhammaan dhinacyada, ayuu hadalkiisa ku sii daray. dowladda Yemen oo ay taageerto isbahaysiga militariga ee Sacuudiga hogaamiyo fallaagada Xuutiyiinta ayaa go'aansaday in ay isdhaafsadaan ilaa iyo 15,000 oo maxaabiis ah oo qayb ka ah heshiis nabadeed oo garwadeen ay ka ahayd qaramada midoobay oo lagu qabtay magaalada Stockholm sanadkii 2018. labada dhinac ayaa tan iyo markii ay bilaabeen maxaabiis isweydaarsiga waxay isku weydaarsan jireen si goos ah, laakiin tan maanta iyo beri dhacaysa ayaa noqon doonta midii ugu horeysay ee ballaaran tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay dalka Yemen sanadkii 2014. afhayeenad u hadashay Laanqeyrta Cas ee caalamiga ah ICRC oo gacanta ku haysa saadka howlgalkan ayaa sheegtay in kooxahoodu ay joogaan garoomo diyaaradeed oo kala duwan, isla markaana arrimahan ay kaalin mug leh ku leeyihiin. daawadeel inta ayaynu ku soo gabagabeynaa barnaamijka falanqeynta xogta caalamka. barnaamijka xiga intaanu ku kulmi doonno sida iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.